shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxa lagu soo hadal qaaday ajandayaal badan. ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horeyn ka hadlay la dagaalanka al-shabaab oo uu sheegay in qof waayeela oo ku sugan gobolada Soomaaliya uu la dagaalamay al-shabaab. sidoo kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isaguna halka ku soo bandhigay sharciga shaqaalaha Soomaaliyeed oo shirka golaha wasiirada lagu falanqeeyay. waa kan wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Injineer Yariisow oo saxaafadda la hadlay kadib markii kulankaasi uu soo dhamaaday. sidoo kale wuxuu xusay in shakhsi 60 jir ah oo Soomaaliyeed oo jooga gobolka Shabeellada Hoose in uu si la dagaalay maleeshiyada al-shabaab isla markaana qorigii ay haysteen ka soo qaatay iskana dhiciyay. taasna waxay ku tusaysaa in shacabku istaagay in amnigooda ilaashadaan. intaas kadib wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa wuxuu soo hordhigay golaha sharciga shaqaalaha rayidka ah oo dib u habeen lagu sameeyay sharcigaas oo runtii halboolo u ah shaqaalaha iyo dawladda sidoo kalena laga siin doono xuquuqda ay leeyihiin. sharcigan wuxuu qorsheynayaa siyaasadda shaqaalaha dawladda, wuxuu xaq u siinayaa in shaqaaluhu helaan tababarkay u baahnaayeen, wuxuu keenayaa isla xisaabtan dhab ah oo shaqada qofkii aan shaqaynayn aan shaqadii maaragtay loo ogolaan doonin. sidoo kale sharcigan ayaa wuxuu ku yimid wadatashi dheer dood dheer ayay golaha ka sameeyeen. waxaan la isku raacay in usbuuc dambe la hor keeno oo wixii dhiman la soo dhameystiro si loo ansixiyo. sidoo kale wasiirka shaqada wuxuu maanta soo hordhigay golaha baaritaan ama tirakoob iyo qiime lagu sameeyay shaqaalaha rayidka ee dalka ka howlgala oo gaaraya in ka badan 5,000 oo qof iyadoo la hubinayo tiradooda tayadooda diiwaan gelin buuxdana si loo sameeyo loo hubiyo shaqaalaha aan shaqaynin oo mushaaraadka qaatana sidii looga joojin lahaa. arrintaasna si wanaagsan bay u socotaa waana qayb ka mid ah ra'iisul wasaaruhuna aad ugu adkeeyay in loo baahan yahay isla xisaabtan dhab ah inuu dhaco. maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere Star TV magaalada Muqdisho.